macmiilkayaga sharafta lahow ku soo dhawow shirkadda Towson Trading Company. Shirkadda Towson Trading Company waxay markii ugu horeysay dalka ku keentay qalabka loo yaqaano GY Safety. qalabka GY Safety waxa loogu talagalay in lagu isticmaalo hadiiba gaasa cuntada lagu kariyaa ay si qaldan hawada u gasho amba se la iloobo in ay bixiso cod digniin waxaana loogu talagalay qalabkan GY Safety in lagu xidho madbaxa wax lagu kariyo. macmiil waxa qalabkan GY Safety loogu talagalay in lagu rakibo madbaxa wax lagu kariyo ee ay taalo haanta gaasto. waxaana qalabkan sida idin muuqata loogu talagalay in lagu xidho gidaarka hadiiba gidaarka madbaxa uu yahay marmar sida idin muuqata daawada waxa aad qalabkan ku xidhaysaa xabag dushiisa gidaarkana mid kale ayaad ugu xidhaysaa meel cabir dhan 60 cm ambaba 3 taako sida macmeel idin muuqata sida tan ayaad ugu xidhaysaa qalabkan gidaarka. hadda macmeel qalabkii GY Safety waxa uu noogu xidhan yahay gidaarka madbaxa sida aad arkayseen ayaana loogu xidhayaa sida macmeel marka aynu qaabkaasi ugu xidhanno qalabkeena GY Safety gidaarka waxaynu intaas ka dib sameeynaa inaynu fiishta leedka gashano qalabkii codkaasi idin aad maqlaysaan waxa weeyaan waxa uu qalabkii inoo shiday laba leed labadaasi leed oo kala ah leed huruuda iyo mid kale oo cagaar ah 3 daqiiqo kadib macmil waxay naga baqteeyay leedka aad arkaysaan ee huruuda waxaana inoo soo hadhaya leedka cagaarka oo kaliya intaasi kadib qalabku waxa uu diyaar u yahay hadda inuu shaqeeyo. macmil hadda qalabkii GY Safety gidaarka ayaynu ku rakibanay waanu inoo shaqeynaya. qalabkan GY Safety ee inoogu rakiban gidaarku waxa uu halka ay taala haanta gaastu oo halkan barbarkayga taala aynu u jirsiinaynaa masaafo dhan 3 mitir ambaba 3 talaabo iyo wixii ka yar. waxa kale oo macmiil aan kuugu bushaaraynaynaa in qalabkan GY Safety aanu haba yaraatee isticmaalaynin ambaba aanu luminaynin dab fara badan oo dhinaca leedka ah waxaana bisha oo dhan isticmaalaysaa in ka yar 1 unit oo u dhiganta qiimaha dollarka in ka yar $1. qalabkan markii ugu horeysay dalka inoo keentay shirkadda Towson Trading Company waana markii ugu horeysay ee qalabkani la keeno dhulkeena. qalabkan ka helaysa shirkadda Somgas meelaha kale ee lagu iibiyo haamaha gaasta iyo qaar kamida supermarketyada waaweyn ee dalka. wixii intaasi dheer macmiil kala soo xidheed telefoonada shaashada hortaada ka muuqda. hamogaanin macmiil inaad isticmaasho qalabka GY Safety.